iyadoo maalintii shalay u ahayd markii si rasmi ah guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland uga bilaabay imtixaanka shahaadiga fasalada afraad ee dugsiga sare iyo sidoo kale fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ayaa waxay la hadda soo baxaya talaabooyin wasaaradda iyo sidoo kale xafiiska imtixaanaadka ku guuleysteen kuwaasoo lagaga hortagayo qish la geliyo goobaha ay ka soconayaan imtixaanaadkaasi magaalada Berbera ayaa ka mid ah goobaha ilaa hadda mas'uuliyiinta wasaaradda iyo sidoo kale gudoomiyaha imtixaanaadku shaaciyeen in lagu qabtay arday iyo sidoo kale macallimiin qaybinta qishash loogu talagalay in la gaarsiiyo ardayda imtixaanaadka ku jira arrinta Berbera waxa ka dhacay markii maadadii diiniga la gelayay ayaa WhatsApp lagu sawiray waa la diray saddex macallin baa ka shaqeeyay saddexda macallin waxay ku qornaayeen dugsiga dhexe inay ilaaliyaan ay ku qornaayeen ardaydii bay dhex galeen gudoomiyaha waxbarashadu inuu saaqidinaya wasaaraddu way saaqidinaysaa goob hiblaayi waa laga eeganayaa lacagta soo ururiya annaga aynala soo shaqaynana lacag $1,000 ku dhoway ardaydii ka qaadeen dabadeedna waa kuwan loo sawiray way ka soo shaqeeyeen isagoo daaqadda ka soo gelinaya yaa la qabtay kii horreeyey kii labaad baa isku dayay haddana xiisad markii dambe la gelayey mawduucii labaad kiina waa la eriyadoo gidaar buu afka geliyo waa la qabtay labaa iminka jeelka ku jira kii saddexaad baa la doondoonayaa jeelka weyn baa loo dhaadhicinayaa sharciga la horkeenayaa waa faldambiyeed abaabulan oo qorshaysan oo carruurta lagu majar habaabinayo weeyaan oo mustaqbalkooga lagu seejinayo ninnama macallin ah walku carruurta wuxuu uga dhigi lahaa anaa inii soo shaqaynaya lacagii ururiya waxaa maynan arag waxaas waa wax lagu soo caanamaalay halkan safaradun baa laisugu qorayey nambarkaygu waa kaa mobilkaygu markuu shanqadha maqlo supervisorka maanta way ka biday xafiiska imtixaanaadka meeshiiba labaa ilaalinaya waxaas way suulayaan insha allahu ilaa intaan suulinaynana programka wasaaraddu ka hadhi mayso way wadasaa ilaa aynu soo celinna ardayga ahaa ee isku kalsoonaa ee dadnimada lahaa innaga dhaqan umayna lahayn qishka aynaa moobilo isku wasiirku imika sheegayey WhatsApp bay haayeenoo waa la qabtay nambaradii soo dirayna waanu haynaa moobiladiina waanu haynaa markaa micnaha qoladaasaan waxaan fariin u dirayaa lugooyo yaanu bixiyo kuwa lugooyaha soo dirayaasha soo dirow nambarkaagii waa la hayaa ogow adiga qudhaadu xeerka iyo sharcigu haddaad waxaad joojin weydaan wayna moobilinka gacanteeda ku jiraan annagaa hayna waananu eegno annagoo gacanta ku hayno soo dhacay WhatsAppkii uu nambarkaagiina soo galay ha xiiqin haddaad ninkii ku ogeyd awal inaan moobilkaanad wax ku diri jirtay war ninkii moobilkii waa lala yeeshay adeer waa lala yeeshay iminka waanu wada haynaa soo dirayaalow waananu idiin soo jeedsanay nin walba gurigiisaanu askari ugu geynonu ka soo qaban waxaa sidoo kale taariikhda markii ugu horreysay wasiirka waxbarashada Cabdilaahi Ibraahim Habban iyo gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ay shaaciyeen in lagu guuleystay ardayda ku sugan xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ee xilligan imtixaanku soo galay ay si rasmi ah qayb uga noqdaan ardayda u fadhiisanaya imtixaanaadka iyagoo dhanka kalena sii wadanaya xabsigooda waxaa isla maanta wasiirka iyo sidoo kale gudoomiyaha imtixaanaadku sidoo kale kormeer ku mareen iskuulo kala duwan oo si rasmi ah imtixaanaadku uga soconayaan maalintii labaad. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.